saaka in xafiisyadii lagu dagaalamo dawladda hoose oo gudidii fulintu isku layso waxaasoo dhan waxa keenaya maamul xumada iyo marka cadaalad darradu badato ee sharcigii la ixtiraami waayo ee bilaadatinimadii la ixtiraami waayo waxay noqonaysaa in dee xafiisyadii la isugu galo miisaskii la isla dhaco dawladda hoose marka hore u sii siqiirtay iminkana way ciidda isku sii rogeen saaka nimankii meesha haystay iyaga ciidda isku rogayba dee allah idiin naxariistaan leyna ilaa wax kale idiima tari karayne waxaan baaq u dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane madaxweyne burco waa baaba burco wax maamula u jira ma jiraan dee in la soo farageliyo maamulkeeda la dhisaa loo baahan yahay dawlad ka soo timaada wax qabad la'aan bay ka cabataa dee maamul xumana waa ugu darsantay oo maamuladii hore jiri jiray dee inuu wax xun bay xeerin jireen imika sanadahan dambe wax maamul aan waxba xeerinayn baa xilka u haya aan sharci ixtiraamin aan dadkooda shacabka ixtiraamin aan waxba ixtiraamin imika wata marayna iyagii gacanta iskula tagaan marka imika waxaanu ka hadlaynaa in la fasaxo awoodihii ay xildhibaanadu lahaayeen iyo sharcigii dawladda hoose lagu soo doortay in loo madax banaaneeyo cidda xaq u lahayd maaha wadankii indhaha laga sii tuura marna la yiraahdo xildhibaanada hala soo doorto haddana lama ogolaanayo waxay xaq u lahaayeen dee kuwa soo socdana hala iska jooji mar haddaan qofkiiba awood bal u lahayn wixii loo soo doortay maxay taraysaa wataasoo imika saddexdii ugu soreeyay isdilayaan la kala maarin kari laayay waxaasna waa sharciga marba dhinac loo tujinayo sharcigu siduu sharcigu yahay tooskiisa ah ha loo raaco dee ama dadka la isku fasaxo hadhow markay gacanta timaadayaan hadhow cid quraca sharcigu qabande mudane madaxweyne golayaashii deegaanka waxay la ciirciirayaan sharciga waraaqdaad ku soo saarteen ee wasaaradda arrimaha gudaha ka soo baxay oo la wayado cid iska haysata meesha iminkana ay sii noqotay meel cid gaar sii leeda waxaana u sii sababay maca xildhibaanada intii la wataa iminka xafiisyadiiba laga eriyay kuwii markii hore isku dhidhajinay waxaana waxa u sababa waraaqda la soo qoray la yiri cidba ma ridi karto maayarada dee caadi loo kala dira haatan ila sida si maaha kuma jiri karnaa xildhibaanka meeshiina iska joogo awoodna ma laha dee meel ka shaqeysa dunida ma jirto ama xildhibaanada hala kala diraan leh ama sharcigoodii ha loo fasaxo sharcigooda waajibkooda ha gutaan imikada waxaan ku kala xalino ma hayno gudida fulintaas haysto way dee sharcigii waa la dhinac walba laga yimid marka ama awoodeedii aanu soo noqono awoodeedii hanala ogolaado aanu awoodahayagii dee isticmaalo oo sharcigeygii raacno ama dee meeshan ha lagu kala diro golayaasha deegaanka khilaafku wuxuu shirka ku hayaa dhul iyo kala wareejin baa lagu yiri waxa islaayay saddexdii fulinta aan kala sheegay waa saddexda ugu sareeyo waa maayarka ku-xigeenka iyo xogaya Cabdiraxmaan Cabdilaahi Xasan telefishinka caalamiga ee Som News magaalada Burco.